seminaarkan oo ay maanta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR kusoo gabagabaysay magaalada Cape Town ayaa waxa hay-addu ugu tala gashay sidii warbaahinta ka howlgashay magaalada Cape Town iyo UNHCR laamaheeda kala duwan ay isaga kaashan lahaayeen ka hortagida tacadiyada ka dhanka ah dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalada Cape Town iyo nawaaxigeeda. hay-adda ayaa seminaarka ku casuumtay saxafiyiin ka kala socotay qowmiyadaha kala duwan ee qaxootiga ku ah dalkani South Africa, hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka, madax ka tirsan dowladda South Africa, iyadoona dhanka Soomaalida lagu casuumay Xadiis Xaaji Aadan oo ka tirsan ururka SASA u dooda xuquuqda Soomaalida iyo 4 suxufi oo ay ka mid yihiin 2 saxafi oo ka howlgashay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. seminaarka ayaa waxaa soo xiray 2 mas'uul oo ugu sareysa hay-adda qaramada midoobay, Tina Geli oo ahayd madaxa Afrikada Koonfureed u qaabilsan UNHCR iyo Patrick Kawuma oo ah madaxa xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Cape Town ayaa waxa ay shahaadooyin guddoonsiiyeen saxafiyiintii ka soo qayb gashay seminaarka. ugu dambeyntii waxaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed uga warbixiyay seminaarka qaar ka mid ah saxafiyiintii ka qayb gashay iyagoona si weyn ugu riyaaqay fursadan ay qaramada midoobay siisay saxafiyiinta. wada shaqeynta dhexmari karta hay'adda UNHCR iyo saxafiyiinta ka howlgala waddanka South Africa gaar ahaan kuwa wadamadaas yimid oo isugu jira kuwa Afrikaan iyo kuwa kaleba. dabcan waxaa ka qayb galay saxafiyiin Soomaali ah oo ay ku jiraan wariyaasha telefishinka qaranka ee magaalada Cape Town. dabcan waxyaabo badan laga faa'iideysan shahaadooyin soo gabagaboobay seminar ama workshop waxa loo yaqaan afqalaad oo ka dhacay maanta magaaladan oo ku ay qabatay hay'adda qaxootiga hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR kaas oo ay ugu yeedhay media isagoo media workshop waa seminar ku saabsan xagga saxaafadda ama loogu talagalay in saxaafaddu ay ku fahanto doorka UNHCR ee dalkan iyo guud ahaan adduunkaba iyo qaxootiga. arrimo ku saabsan dad fara badan baa ka soo qayb galay. waxaa ka soo qayb galay ugu yaraan 5 qof oo ka socday saxaafadda Soomaalida. runtii aniga oo Xadiis Xaaji Aadan ku jira dabcan saxaafaddana ka mid baan ahay, bulshada oo dhan baan ka mid ahay maadaama xuquuqdooda u doodo walow dadka qaar laga yaabo inay inta badan xuquuqda aadamaha qof u doodo. seminaarkan ayaa wuxuu noqonayaa kii labaad ee UNHCR ay u qabatay saxafiyiinta ka howlgashay magaalada Cape Town, waxa ayna ballan qaadeen inay la shaqeyn doonaan saxafiyiinta qaybaheeda kala duwan. Cabdullaahi Ibraahim Dasar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Cape Town, South Africa.